بسم الله وعلى بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الأحبة في الله، ميلكستو أتشوكتان بشهركم مبارك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إلهي بان مهدينينا ونمهد علينا نعموين كتير بدن أو نقول الله ديستي وأي كم تهي إنو نجارسية بشي رمضان سنة ككون يافر بقول يافرتني تضبطه. إلهي وحن كبر ينين وطاعدي سنة وافتشيو nagana aqbalo. waa taxanayaasheenii ramadaanka. kani waa taxanihii toddobaad. ciwaankiisuna wuxuu noqonayaa qowlu llahi tabaaraka wa tacaala walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa. oo ilaahay uu inagu leeyahay inaguna amrayo dhulka inaynaan fasahaadinin kadib markuu ilaahay hagaajiyey. ilaahay wuxuuna leeyahay dhulka macaasi ha ku fasahaadinina, dulmi ha ku kharibina dhulka, shirki ha ku dhibaataynina dhulka markuu ilaahay ku hagaajiyey hanuun iyo sharci, cadaalad iyo raxmad iyo khayr oo dhan. axibatii fillaah, dhulka ilaahay baa hagaajiyey, koonkan ilaahay baa hagaajiyey, wuxuuna ku hagaajiyey islaamnimo iyo qur'aan. ambiyuu u soo diray, nidaam iyo sharci buu u dejiyey, cadaalad iyo sinaan iyo raxmad iyo kala dambayn buu alla u soo dejiyey. amni iyo istiqraar baa ka dhashay, deganaashaa ka dhashay, qulubtii baa hagaagtay, akhlaaqdii baa hagaagtay, mucaamilkii iyo dhaqankii baa hagaagay. ee ha fasahaadinina buu allana leeyahay. oo xuquuqda ha fasahaadinina, mucaamilka ha fasahaadinina, diinta ha fasahaadinina, mujtamaca ha fasahaadinina. maanta waad aragtaan meesha aynu marayno, in dadkii adduunka xukumay intay caruur yaryar oo da'doodu ay aad u yar tahay intay sidii maqashii xero ku xaraysteen inay kolba mid la baxayaan oo ay xumaan oo dhan ku samaynayaan, bal sida la sheegayo inay caruurtiiba hilibkooda cunayaan. yaa waxaa samaynaya? waa dadkii adduunka xukumay, waa dadkii siyaasiyiinta sheeganayay, waa maalqabeennadii, waa dadkii dunida saamaynta ku lahaa, waa dadkii dunida xukumay weeye. ilaahayna subxaanahu wa tacaala fasaadka waa diiday, xumaantana waa diiday. dhulkeenna haddaynu u soo noqonno ama dhulalka islaamka, walaalayaal, abaaraha iyo dagaalada iyo isnacaybka, uurxumada, xasadka, xumaanta iyo waxa aynu dhib arkayno oo dhan, waxaa walaalayaal sabab u ah waa ilaahay diintiisa oo laga baydhay, waa cadaaladii oo meesha ka baxday, waa sinaantii oo la waayey, waa sharcigii oo lama dabaqi waayine kas loo garamaray weeye, waa gaala iska yeelyeel. waxaa weeye waa adduunyadii oo laga hormariyey aakhiradii, xaqii alla uu nagu lahaa oo laga hormariyey xaqii makhluuqa weeye. arrinkaasna alla raalli kama aha. ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaynu warkiisa maqallo, hadalkiisana maqallo, waynu badbaadaynaa walaalayaal. sidaa awgeed ayuu taxanaheennu waxaa ciwaankiisu u noqonaya walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa. waxaan idinka codsanayaa in wixii aad iga maqashaan aad iska filtar garaysaan, wixii toosan inaad maaragtay dhaqan gelisaan, dadkan aad gaadhsiisaan, wixii idinla qalloocnaada ee ama gaf iyo gebidhacahna aad dan oga baxdaan. ilahay waxaan ka baryaynaa inuu bisha ramadaan soonkana waafajiyo, qiyaamka inuuna waafajiyo, qurubaadka kale ay ugu horeeyaan qur'aan akhriska iyo ducada iyo sadaqada inuuna waafajiyo, habeenka leylatulqadarkana inuu allana waafajiyo ayaan ilahay inooga baryayaa. idinkuna aamiin inoo dhaha. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.